بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا كسو دوادا معadka Spain oo aad uga barateen waxyaalaha lagu horumarinayo bini'aadanka aad uga barateen waxaan ku soo jirnay casharka imtixaanaha ahaa oo la xiriiray risk management ama qataraha in la maamulo kaas hadda aan ku soo jirnay qodobadiisi waxa kamid ahaa aqoonso qataraha kaas ayaan caaw insha Allah hadda la yiraahdo xoogaa aan halkii ahaa ka fiiri doonaa insha Allah hadda wax Ilaahay naga fahansiyo qataraha soo wajaha ganacsiga ama lama maamuli karo ama shirkada lama maamuli karo hadii marka koowaad aan la aqoonsan qatarahaas hadii yani aan la aqoonsan qatarahaas oo aan la haysan yani farsamo lagu aqoonsan karo yani lama maamuli karo hadii la aqoonsan yahay qataraha yani imaan kara qataraha imaan kara hadii la aqoonsan karo waa guul aad u weyn waa guul waa sababtu waxa waaye guulshaas waxay yani sabab u tahay inaad barato meesha laga jiro yani waa qof cudurka haaye yaqaano kala waay marka qataraha marka horta imaan kara oo ganacsiga ku imaan kara qataraha marka waa kala duwan yihiin macnaha ganacsiga najerkiisa ku xiran yihiin ama shirkadda najerkeeda ku xiran tahay ama hay'ad oo kale najerkeeda ku xiran tahay tusaale ahaan hadii ganacsiga kale waxa qatara aad u ah dagaalada qabaliga oo kale ama dagaalo oo meel ka dhaco oo noocaasa ama duufaano dadku inay hal mar shift gareeyaan waxyaalahaas oo kale marka qataraha ah waa la sii nood gareystaa waa laga warqabaa hadhow marka waxa waaye markay imaadaan yani si qaab loogu diyaar garoobaya bahalka looga fakiraa laakiin haddaadaba aqooninba horta qataraha ku soo wajihi kara oo xirfad u lahayn yani waxa waaye aad iyo aad dib u tahay waxa kaloo jira marka qofku marka qatarahaas oo fahmi karo oo guushaas oo haysto waxa u fududaanaya qiimeynta nooca uu noqon karo qatarahaas macnaha qatarahaas nooca uu noqon karo ayaa macnaha qiimeynaysa marka intaas oo qatara imaan karto kaas saas oo noqon kara kaas saas oo noqon kara marka yani muhiim waa marka in la aqoonsado marka qataro jira waxay u baahan tahay in aad leedahay xirfad aad ku fahmi karto in qatar imaan karta in qatar imaan karto in marka qatar imaan karto waxa yani xirfad aad u baahan tahay yani qofka maamulka ah oo analysis gareynayo yani ma fahmi karo hadii uu salahayn khibrad oo u lahayn ma fahmi karo qataraha imaan karo hadiiba marka la heli karo xirfad aad u sareysa oo lagu ogaan karo qataraha soo wajahaya ganacsiga waxa ku fudud in aad ka hortagto ama ugu yaraan aad miisaanto qatarahaas intaas ku fududays macnaha hadii yani qatarahaas bahalka ay ku soo wajahaya fahmi karto waxa ku fududahaya ina bahalka ahaa fahanto oo miisaan qatarahaas si aad uga badbaadiso ama u yareyso waxyeelada qatarahaas yeelan karo yani qatarahaas waxyeelada yeelan karto yani si aad u yareyso yani ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay in la aqoonsado qatar ama riski waa in la yareeyo saameyntiisa horta marka yani hadda waxyeelada in la yareeyo kuma dheehno waa ujeedada ugu weyn horta qatar oo yani ugu weyn يعني قطر maxaa loo sheegaa warniyo waxa imaan kara waxaas warniyo saasa imaan karta warniyo ganacsiga saana loo nici kara warniyo hubaalkii ahay qaraxa dhici kara waxyaalaha ugu weyn marka waxa waaye in hadii tusaale ahaan meel furuna ah ku ganacsanaysid qatarta ku imaan karta waxa waaye inuu qarax ka dhaco meeshaada ama inuu ka dhaco dagaal oo ka dhaco marka maxaa ku fakaraya marka alaabta dhan inta iska wada dhigina wax yar oo dukaanka asaasaaraysa dhiga inta kale meel kale oo hadhow hadii wax dhacaan ka sii baxsan karto gasho marka qatartii ka badbaado marka tusaale ahaan dukaanka waxa saartay 20 shaati iyo 20 surwaal
laakiin adiga waxaa keentay waxaa tarta marka waxa waaye 20 su'aal markaad saartay tusaale ahaan 200 oo item haysay 200 oo item ayaa haysay 200 oo item haysay 20 shayana meesha ku saaran marka meesha qarax ka dhacay oo dukaankii burburay ama dagaal dhacay oo dadkii kala cararay meesha furna noqotay alaabta laga bixi karo marka maxaa ka halaabay 20 ka shay 200 ka halaabayso marka saas waaye qaabkaas waaye marka waxa la sameeyaa inta badan qataraha waxa la isweydiiyaa dhowr su'aal oo يعني businesska wisely markuu u fikraa qaab aqal ku jiro markuu u fikraayo waxa la isweydiiyaa su'aalan maxaa qatar oo dhici kara horta ganacsiga marka joogto waa laga fikraa sidee u dhici karaan qatartaasna waa laga fikraa sababta qatartaas u dhaceysana waa maxay tusaalahan tsunami dhici karto qatar dhici karto waaye sidee u dhici kartaa biyo ayaa ku soo fatahaya badda يعني سو ديني بيها سأل يا إني نحقان maxay u dhici kartaa sababta u dhici kartaa waxa waaye badda fulkaana ka dhici karo waxba ka jiri karo macnaha waa wax ilaahay wato xaaladda isbedeli karta waxa soo dhan ay u dhici kartaa marka aad iyo aad u mahadsantihiin ku soo dhawaada macadka Spain intaasan ku soo gabagabeynayna wixii faahfaahin oo aan nooga baahataan commentiga ay ku dari kartaan waa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum.